There are different kinds of types of questions. waxaa jira noocyo kala duwan oo su'aaleed. waxaa loo qaybiyaa su'aalaha baynu odhani yes or no questions or short questions. su'aalaha gaaban ee la yidhahdo yes or no questions ama su'aalaha haa ama mayada ah. WH questions su'aalaha ku bilaabma WH. Indirect questions su'aalaha dadban. And tag questions iyo su'aalaha gaaban. aynu kala qaadno. yes or no questions markaan leenahay tusaale waxaa la odhanayaa haddii jir su'aalaha haa ama mayada jawaabtoodu tahay waxaa lagu yaqaanaa waxay ku bilaabmaan haddii jeer waxay ku bilaabmaan auxiliary verb ama falcaawiya ku bilaabmaan. tusaale ahaan to ama have ama did ama does etc. tusaale maxaad odhani do you like pizza? Do you like pizza? sabayda miyaad jeceshahay? Do you like pizza? ama do you like pizza? sabayda miyaad jeceshahay? waxaan odhanaya su-aashaas waxay ku bilaabantay falcaawiyaha to waxaan u baahan tahay jawaabteedu inaad sabayda ma jeceshahay markii lagu weydiiyo haa ama mayaad kaga jawaabto. saa darteed baa loo yidhi yes or no question. su'aalaha WH questions ka la yidhahdaa waxaa soo kale loo yaqaana open questions ama su'aalaha furan ama informational questions su'aalaha warbixinta. waa su'aalo ku bilaabmaan hadii jeer eriga WH bay ku bilaabmaan xarafka WH bay ku bilaabayaan marka laga reebo how. maxaa ka mid ah tusaalahan who, what, when, where, why, whose iyo how. xabada how oo kaliya ka duwan inta kale waxay ku bilaabaan WH. su'aalahan hadii jeer qofka uga baahan jawaabtiisu ma aha iyo maya waxay ka rabaan inuu warbixin dhiibo. tusaale hadii lagu yiraahdo where is your father? awe abaha. where is your father? awe abaha. at least you gotta give an answer or you gotta tell where your father is. ugu yaraan waa inaad sheegto abaha halku joogo ama waa inaad jawaab aad warbixin ka bixiso. tusaale maxaan odhani waxaa ka mid ah what is your name? magaca. where is your father? awe abaha. marka lagu yiraahdo where is your father? awe abaha ugu yaraan waa inaad tiraahdo he's in the kitchen jikadu joogaa. he's in the toilet musqushu ku jira. he's in the mosque masaajidku joogaa. tusaale waxaad tirahdaa what is she for you? maxay kuu tahay? what is she for you? maxay kuu tahay? maxay kuu tahay markii lagu weydiiyo qof dumar tusaale inta ku saqataa islaantaas lagu weydiiyo what is she for you? maxay kuu tahay? at least you gotta tell your relationship. waan xiriirkiina sheegto marka ugu yartahay oo warbixin ka dhiibto. saa darteed baa loo informational question oo tirahdo ugu yaraan she's my aunt waa eedadii ama waa habaryartay ama waa ayaday. she's my cousin waa inaabtiday. she's my mother waa hooyaday. she's my sister waa walaashay. WH questions waxaa tusaale ka mid ah whose oo macnaheedu tahay yaa leh ama yaa iska leh. misal waxaa la odhani whose shirt is this? shaarkan yaa leh. whose shirt is this? shaarkan yaa leh. and then at least you gotta give an answer. ugu yaraan waa inaad jawaab ka bixiso tirahdo it's mine waa kaygii. it's my father's shirt waa shaarkii aabahay. it's yours waa kaagii. and that's all about the lesson our lesson for today. It's your teacher Abdi Ali Liban.